السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin la wadaagayaa xigmado ku saabsan nolosha. Haddii aad ka cabsan jirtay kelinimada iyo cidlada, hadda ka cabso inay saaxiib kula noqdaan dad xun. Aadhihin weligaa waqti igu filan ma haysto. Ogowna dadka horumarka gaaray dhammaantood waxay haysteen 24 saac. Guushu ma ahan dhamaadka nolosha, fashilkuna ma ahan dilaaga nolosha. Guushu waa joogtayn, xitaa haddii uu wajigaaga dhulka ku dhaco, ha ka caajisin inaad hore u socoto. Ilbiriqsiga kaliya ee aad guulaysanayso wuxuu ku ilowsiinayaa dhibka iyo rafaadka aad ka soo martay si aad u gaarto guushaada. Marna ma khasaaraysid intaad ku jirto isku day. Noloshu ma ahan mid adag markaad ku xiran tahay Allah subhanahu wa ta'ala, laakiin way adag tahay markaad ka tagto daacadka Allah subhanahu wa ta'ala. Iska jir isla weynida, tusna dadka inaad tahay iyagoo kale eerka doontaba aad gaartide. waayo Allah subhanahu wa ta'ala ma eego qofka isla weyn maalinka qiyaamaha. markaan wanaajino xiriirka Allah subhanahu wa ta'ala isagana waxa uu inoo wanaajinayaa wax kasta inaga. toosnoo mar waliba waxa laga yaabaa daqiiqadaas inay noqoto mid noloshaada ugu dambeysay. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.